salaan kadib dhammaan waxaan mahad celinaynaa intii nagala soo qayb gashay munaasabadan aad iyo aad u qiimaha badan iyo soo dhaweynta madaxweyne Axmed Ducaale Geelle aan ku soo dhaweynay maantay magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug intii ka qayb qaadatay qof kasta kaalintii uu ku lahaa uga mahad celinaynaa intaas kadib maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabihii Galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh Galmudug isu keenay u tanasulay odatinimo aan horay Galmudug u soo marin ka geystay maantay in halka la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyay ama odatinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyay maantay u muujiyay Galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer Galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhamaatay khilaafkii iyo waxaabii yararka ah oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinaya Galmudug dhexdeeda waxaan markaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle xaf aad iyo aad oo idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka ma tiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogta oo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato dadka kulligood Galmudug inay raysataan loo baahan yahay Galmudug dhibaatada inay sii haysto lama baahna anugu geed fadhi kaliya ma ahe waxaan rabaa inaan iska fadhiyo Galmudug maba ka tagaayaba xamar damba ma socdo qof walba ogow inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan isaaro halkaas iska aadahay ayadana waxaan rabaa la igu soo taakuleeyo rag badan oo meesha joogow war igu soo taakuleeya waa shilafada ka daayay